waxyaabahan aan kula wadaagayo waa waxyaabo muhiim u ah naftaada iyo dadkaaga iyo gurigaagaba waa waxyaabo difaac kuu noqon doona hadday guriga kuu yaalaan waxaan ku leeyahay hani alla ka hambalyo haddaysan kuu oolinna bishan ku darso adeegga aad soo adeeganaysid ama markaad guriga raashinka soo dhigaysid ku soo dar insha allah gurigaaga ma yaalaan waxyaabahan aan kula wadaagayo si gurigaaga ma laga helaa bishii markaad soo adeegaysid adeegga ma ku soo darsataa waxyaabahani gurigaaga ma yaalaan waa waxyaabo cajiib ah runtii kow gurigaaga ma yaalaa quslul hindi baalka la yidhaahdo laba gurigaaga ma yaalaan biyaha zamzamku saddex gurigaagu ma taala xabatu sawdada midhaha iyo tasaliidiba afar gurigaaga ma laga helaa saliidda ruqyada ah ee qur'aanka wadata ee zaytuunta loo yaqaano sidoo kale gurigaaga xildiidii sidoo kalena malabkii sidoo kale toonta shiidan sidoo kalena sinjibiilka aadka u kulul waxyaabahaasoo dhan haddii gurigaaga laga helo biidni illaahi albaari waxba kuma dhibayaan wixii laguu keeno markaad keentid guriga alaabtaana insha allah dib bay ugu noqon doonaan sidoo kale waxaad laasimtaa ku akhrinta gurigaaga qur'aanka especially suuratulbaqara inuu gurigaagu qaato subaxii iyo galabtiiba in guriga samaacad inta la shido in qolka fadhiga la iska dhigo ama qolka hurdada la iska dhigo quraankaasi uu gurigaaga ku baxo faa'iido aad iyo aad u far badan ayaad ka helaysaa isbedel ayaad dareemaysaa arsaaqada iyo farxadda iyo caafimaadka dadka guriga ku noolna way kordhi doonaan oo way ziyaadi doontaa biidnillaahi alkariim aad baa mahadsantihiin muuqaalka inoo sheer gareeya na soo follow gareeya aad baa mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu